واليتامى ده يستاهلون أكثر وأكثر. أنا صراحة ما أستاهل، أنا ما أستاهل. رب العالمين هو الذي أكرمني. kulanti wacan saaxiibayaal, barnaamijkeenan maanta waxaynu ku eegi doonaa barnaamij loogu magac daray anta kafu ama adiga ku filan. waa barnaamij ka baxa TV kamida TV-yada ku yaala wadankaasi Bahrain. barnaamijkan waxaa lagu dhiirigeliyaa dadyoga kala ah macallimiinta, dhaqaatiirta, guud ahaan dadka caawiya bulshada isla marhaantana magaca ku dhaxlay guud ahaan bulshada wadankaasi Lubnaan. waxaana la siiyaa abaalmarino kala duwan oo ay ku qoran tahay bilad kafu oo micnaheedu uu yahay adiga ku filan. barnaamijkan ayaa ah barnaamij hadba qofka markaasi saameynta ku dhaxlay bulshada lagu soo bandhigo isla markaan lagu dhiirigeliyo. hadda muuqaalkeenan waxa uu maanta ku saabsan yahay Axmed. waa shakhsi dadka caawiya gaar ahaan caruurta, agoonta iyo rajada ah. wariyaashu iyo howlwadeennada waxay isku diyaarinayaan sidii ay u duubi lahaayeen muuqaalada kaamirada qarsoon. wadooyinka oo dhan waxaa lagu dhajiyay mahadcelintiisa. ugu dambeyntii waxaa loo dhiibay gaari oo furihiisa la yiri bal noo tijaabi gaarigan. hase ahaatee waxaa lagu xiray kaamirooyin qarsoon. kaamirooyinkaasi ayaa waxay duubayaan gudaha gaariga uu saaran yahay. ugu horeyn waxaa la bilaabayaa shaqada ugu horeysa oo ah gaadiidka kala soo dhinac istaagan gaadiidka uu wato professorka. wuu yaabay, dhinacyada ayuu fiirinayaa. waxaa loo dhawaaqayaa dhalinyarada kale ee shaashadaha wada isla mar ahaantaana wada gacanta ku sida boorarka. كل السيارات تتحرك. boorarkaasi waxaa ku qoran mahadcelinta professorka idin muuqda ee gaariga wata. waa uu yaaban yahay, indha ayaa ka soo haray. يلا شباب نسكر الشارع. shaashadii ayaa dana mar labaad la jiidayaa oo ay ku qoran tahay aad baad u mahadsan tahay. waa uu qoslay, salaan ayuu u taagay. يلا qaybta kale ayaa loo yeerayaa oo ah soo leexiya gaariga ay shaashadu ku xiran tahay. hagaag isla mar ahaanta dareenkiisa ayuu celin waayey. waa uu ooyay professor. shaashada iclaamka ku qoran ayaa la yiri hal sawirkiisa oo ha loo bedelo sawirka. haddana dhinaca kale ayaa hoon looga yeeriyey. waa uu fiirinayaa, sawirkiisa ayaa halkan ka soo baxay. salaan ayuu u taagay. waa waxyaabaha cajiibka ah. wadankaasi Bahrain guud ahaan dadka saameynta ku dhaxlay bulshada ayaa lagu dhiirigeliyaa barnaamijkan. shaashada weyn ee ku dhagan darbiga ayaa markii dambe la yiri ha lagu soo qoro qoraalka ah kafu oo micnaheedu uu yahay adiga ayaa ku filan. anta kafu saad u wada jeedaan. ugu dambeyntii professorkii oohin ayuu isxakameyn waayay. waxaana mobilkiisa ama gaariga uu wato shaashada dhexdeeda ah laga daaray muuqaal lagu wareysanayo guud ahaan dadkii uu soo gacan qabtay isla mar ahaantaana uu soo garab istaago oo ay u badan yihiin yatiinta sida agoonta iyo sidoo kale caruurta hooyadood ay ka geeriyoodeen. salaan ayuu u saarayaa. micnaha waxay ku noqotay wax aan filawa ahayn, surprise ama suuragal ahayn. sababtoo ah ma filanaynin. kaliya waxaa la yiri gaariga noo tijaabi maadaama aad nin aqoon badan. ugu dambeyntiina gaadiidkii iyo dhan saf ayay ku jiraan. laamiga isaga ayaa loo xiray. samaa farihii ayaa dansan. waxaa la sugaya oo kaliya gudahan dadka gaariga saaran ay soo wada baxaan. laamiga ayay soo wada safanayaan iyagoo aad ugu faraxsan isla mar ahaantaan u muujinaya professor Axmed dareen ku aadan sida hawsha quruxda badan oo u qabtay bulshada wadankaasi Lubnaan gaar ahaan caruurta, agoonta iyo kuwa rajada ah.